badanta damaysiyo laba horaan waa aakhiro iyo camalkaad shaqaysatay. barnaamijkana caawa waxaanu kusoo qaadanaynaa qaaliladan oo ah fanaanad soomaaliyeed oo muuqaal iyo maqal la daneeyo leh, shacab aada u badanna ay ku xidhan yihiin dhagaysigeeda iyo daawashadeeda. hase ahaatee isaga baxday fanka gebi ahaanba, ujeedooyinka iyo sababaha ku kalifay iyo waxa waana ah inuu ka qaadan karno. xumaaday waxa waaye xalay inay meesheeda joogtay ee weliba garabkeyga ka ciyaaraysay, maantana la oofsaday. bal fiiriya gabadha qof walbaba camalkiisu aakhiro la tagaa. yees waa run, laakiin waxaa jirto waxyaabo qaar isla markiiba maxaa iisoo sawirmay anigii kama marna meeshii saymaana anigaa ka daran. intaasoo qofood anay ii imaadeen, fiidiyoyada xalay ugu dambeeyaa soo geliyey. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan soomaali weyn meel walbaa dunida ka joogtaan, barnaamijka caawa waxaan idinkula wadaagayaa fanaanad aada u dacyar, codkeeda iyo maqalkeeda iyo muuqaalkeedana bulsha soomaaliyeed oo badani ay danayso. fanka ka cusub magaceedu waa qaaliladan, waxa ay ku nooshahay Kenya, muddana fanka way ku jirtay iyadoo weliba da aada u yar ku bilowday. haddaba qaaliladan caawa waxay isaga baxday gebi ahaan fanka. sababta ugu weynee fanka ka saartayna waa sabab aan oran karo qof walba oo damiir leh ama damqasho halka loo badaniyo aakhirana og inuu ku dayn lahaa. xalintoole ayay qaaliladan waxay ku qabsanaysay xaflad halka ay ku nooshahay. dabeeto xafladda waxaa isugu yimi bulsho aada u badan, waxaana ka mid ahaa gabarh soomaaliyeed, allaha u naxariistay. gabadhaa soomaaliyeed maanta ayay geeriyootay iyadoo ku dhimatay shil gaadhay. haddaba qaaliladan kolka ay hurdadii kasoo kacday maanta ayaa waxaa loo sheegay inanay aada isugu dhow yihiin ismaqal iyo muuqaal yaqaaniin oo goobta la joogtay inay geeriyootay. taasuna gilgil wadnaheeda ayay ku reebtay. gabadha yar ee xalay toole geeriyootay qaaliladan waxay sheegaysaa inay naf ahaanteedu istiri ka waran haddii aad makaankaa joogi lahayd. waxayna ogaatay naf ahaan naftu inaysan ahayn wax meel dheer jira, xilli walbana lagu imaan karo, taadiina ay noqon karto. haddaba qaaliladan waxyaabaha ay sheegayso waxaa ka mid ahaa inay tiri, ka waran anigu xaggee baan joogaa oo ah weliba fanaanad. heesaheeda malaayiin soomaaliya dhegaystaan. fanku ma aha wax xubbigayga ahaa inaan ku geeriyooda ama muddo aada usii dheer aan ku jiro. hase ahaatee maalin oo inay ahaatoba inaan ka baxo oo eebbahay risaaqad khayr iigu bedelo ayaa qorshahaygu ahaa. maray erayadaa tilmaamaysana waxaa ka mid ahaa hadalladeeda sida tan: hees dambana layguma oga, maalin walbaba waxaan isdhahaya israaqadan ilaah baa baxsho. fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay, oo markastana aan ka baryi jiray, aan dhihi jiray ilaahayo israaqad meel kaleeta iga sii. maantay in aan bataatan aan fankayga soo gabangabeeyey, dambana aanan rabin inaan kusoo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin. haddaba sidii aanu ogsoonahay, fanka soomaaliyeed waqtiyadii dambe wuxuu noqday kuwa codkooda la odhan karo waa kuwo la dhagaysan karo oo dhawaq macaan inay ka baxaan. tusaale ahaan kolka aan tilmaanana ay ka mid yihiin fanaaniin aada wada garanaysaan uu ugu horeeyo axmed biikey, ama aan idhaahdo ahmed biif, ama aan idhaahdo xamda kuweyn iyo xamda yar, iyo kuwo ka waaweyn oo hore oo hortood fanka ka baxay uu ugu horeeyo sulfa. halkaasoo ay soo galayaan kuwo aan isleeyahay garasho iyo cod iyo dareen lagu dhagaysto toonna ma laha, kuwa kanuna ay ka mid yihiin. waxay ahaataba ruuxu eebba qadaro ayaa fanka ka baxa, kay ahaatoon tiisa ahayna maalintii loo qadaro ayuu ka baxaa. waxaase lama horaana badi fanaaniinta soomaaliyeed inaysan jeclayn inay camalkooda aakhiro iyo maalintai ugu dambeysa ay adduun ka tegayaan fan uu fariintooda noqdo. waxaa kaleetoo jira kuwo badan oo ka baxay oo islamar ahaantaasi ka ahaan waayey oo ku soo noqday, oo dee tiri iyo cadad aan lagu koobi karin. aan usoo noqono barnaamijkeena. waxaan booqday goobteeda youtube-ka gabadhii geeriyootay ee allaha u naxariistee sababtay inay fanka ka baxdo maanta, qaaliladan. durbadiiba kolka aan youtube-keeda booqday waxaan ku arkay gabar soomaaliyeed oo asturan, ay ka muuqdaan sunno iyo wanaag iyo xijaab la tilmaansan karo. runtii xanaxdintii iyo walwalkii markii hore aan dareemayey ma aanan dareemin markii dambe, sababtoo ah dhawaqeeda iyo sheekooyinkeeda iyo waxyaabahaan ka daawanayay muuqaalkeedu siduu yahay wax u muuqatay gabar muslima oo asturan. qofkuna hobbigiisu wuu noqon karaa wax duubid isagoo aan ceeb iyo fawaaxish toona ku gudbinayn.
waxa kaleetoo niyadeeda kusoo dhacay kuwo badan oo xayadii iyo xushoodkiiba uu ka tegey oo aanan ogeyn meesha badan ee loo wada dhaqaaqaya iyo hoyga lama horaanka ah inuu aakhirayey. kuwo badan oo soo dhiga muuqaal dareen ahaan aad ka damqanayso miyaysan ogeyn maalin uun inay tooda noqon oo la tilmaami doono. eebbahay waxaan ka baryayaa inuu dhallinyarteenna wada hanuuniyo khayrka iyo lama horaanka aakhirana uu xasuusiyo. barnaamijkeena si aan usii wadano noo sii subscribe, comment iyo like-tuna waa noo lama horaan inaad bulshadaada la wadaagto wacyigelinta iyo waaqica wanaagsanna adigana kuu wanaagsan anagana noo wanaagsan. aanu sii gudagalna haddaba gabadha la yidhaahdo qaaliladan qorshaheedu wuxuu ahaa inuu fanka ay kusii jirtay intay ahaataba, hase ahaatee way ka baxday. sababta ugu weynanina waa gabadha tan accidentii oo ku dhimatay waxay ahaayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, laakiinse shirkaa waxaa ku dhintay iyada iyo wiil kale. waxaa jira haddaba su-aal ama labo aan iska weydiiyey halkaa. waxaan idhi dhalinyarta tan wada socotay inta dhimatay allah u naxariistay iyo inta nool xaggee bay u socdeen? qorshahooduse muxuu ahaa? sababta keentay inay israacaanse maxay ahayd? maxaa dana ugu jirtay? waalidkood ma ogaa? maxayse dareemayaan? waa wax lama horaana oo dhalinyaro kasta oo ay daawanaysa iyo waalid kasta oo ay daawanaya inay daneeyaan oo dareemaan loo baahan yahay. tan koowaad waxaan isweydiiyey dhalinyarta israacaysa miyay ahaayeen kuwo diin ahaan isqaba oo ay tahay inay muxram isu noqdaan ilaan islaam baynu nahay? kuwo eebbahay raalli ka yahay wada socodkooda miyay ahaayeen? kuwo waalidkood ogol ka haysta safarkooda miyay ahaayeen? waxaa hubaal aynu wada ognahay dhalinyarta Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale habeenkiina inay wada caweeyaan oo maqaaxiyaha iyo banaanada wada tagaan ama goobaha ciyaarta iyo qoobka ciyaarka. maalintii xilligay awoodaan ama ay fursad u helaanna inay sameeyaan. qaar kale oo badanna inay xaaladaas ku dhacday oo geeri lama ilaawaana oo mafaaji'a ah waalidkood ay maqlaan iyagoo guriga ku ogaa. haddaba waxay u badan yihiin dhalinyarada israacaya kuwa aanan muxram isu ahayn. gabadh aanan walaalkeed la socon ama aabaheed la socon ama saygii ninkeeda ahaa uusan la socon ama wiilkeedii aan la socon oo wiil dhalinyaro ah oo kaleeto oo Soomaaliyeed la caweynaysa waqtina la qaadanaysa. ha ahaadeenba kuwa aanan xumaanta samaynayn oo keliya muusig wada duubanaya inkastoo muusiguba uu xumaanta yahay ama aan idhaahdo ma garanaysaa meelo qurux badan soo duubanaya. haddana waxa hubaal ah inuusan eebbahay raalli ka ahayn. dadka Soomaaliyeedna si kastay ahaato ama si kastay wanaag ugu maqnaayeen aysan khayr u fasiranayn. hase ahaatee ay oranayaan sabab bay u baxeen, maxay ku maqnaayeen, miyay isqabeen, xaggee bay aaday, yaa ka mas-uula, madan gaaray ku maqneed iyo waxyaabo badan oo kaleeto aan carabka lagu qaban karin oo ihaano looga dhigayo. haddaba waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee rag leh ee dumar leh, bixitaanka aad baxaysaan ma ogidin inuu yahay kii noloshiina ugu dambeysay. ma ogidin inuu yahay mid aad waalidkiin kusoo noqon doontaan. ma ogidin inay tahay sahaydii ugu dambeysay aad kula galban lahaydeen dhankaa iyo aakhiro. ka taxadara oo naftiinu ha ogaato meesha aad u socotaan iyo macnaha aad u socotaan. camalkaagu ha noqdo waxa aad og tahay inuu yahay mid aad la soo bixi doonto kolkay taadu timaado iyo maalinta aakhiro. waa lagugula xisaabtamayaa wixii ugu dambeeyey ee aad ku geeriyootay oo waa sida naftaadu kusoo muuqan doonto. haddaba waan ka waaninayaa dhalinyarada Soomaaliyeed lababa. waa mid waxaan ka waaninayaa kolka ay socdaal yihiin iyo meeshay tegayaan inay noqoto meel ay idan ka haystaan waalidiintood oo waalidkood u eg yihiin. qofka ay raacayaanna uu yahay qof eebbahay u baneeyey oo ma garanaysaa dee waalidkeed ama ninkeedii ama qof lama horaano oo lagama maarmaano oo aan dambi uga imaanayn. taas waa taa. tan kale waxaan kala dardaarmayaa waxyaabaha fawaaxishta iyo xumaanta aad soo bandhigaysaan inay yihiin wax idinka haraya. haddii aad wax same iyo wanaag la soo dhigtaan waa wax la idinku xasuusanayo aakhir iyo adduunba. haddii aad wax xun soo dhigtaanna waa wax idin daba oolaanaya aakhir iyo adduunba. marka dardaarankaygu waa dhalinta Soomaaliyeed oo imika social media aad ugu soo badatay, hadday noqoto TikTok, hadday noqoto Facebook, hadday noqoto Snapchat, hadday noqoto YouTube. aakhira badane wadkuna ma aha mid yaqaan yar iyo weyn aakhiradiina xasuusta. intaa wixii dheer warsan iyo war khayr iyo waanado ina wada deeqda habeenkuna ha inoo wada wacnaado. asalaamu calaykum waraxmatullahi